السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدن يالي مروين kusoo dhawaada janaalkeena Fasuun maanta waxaan aad ugu faraxsanaynaa ku soo bandhigo sheekada soo jiidashada leh shakhsi ay ka soo horjeesatay dhammaan fursadaha guusha saaxiib la noqday caqabado kala duwan oo joogto ah Mr. Jack Ma aasaasaha shirkadda Alibaba Group mid ka mid ah dadka ugu taajirsan waddanka China isaga oo haysta hanti gaaraysa 37.5 bilyan oo dollar balse waxa uu safarkiisa ku bilaabay lacag dhan $12 oo bishii mushaar ahaan u qaadan jiray haddii aad aaminsantahay inay wax u baleeyihiin kuwa adag daawo qisadan dhiirigelinta leh oo inala wadaagaya Mr. Jack Ma What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. waxa uu dunida ku soo biiray 10kii Sebtembar sanadii 1964 wuxuuna ku dhashay magaalada lagu magacaabo Hongshu ee waddanka China isla magaaladaas ayuu ku barbaaray reerkiisuna waxay ahaayeen kuwa aan wax badan haysanin safarkiisii waxbarasho iyo caqabadihii Jack Ma waxa uu 2 jeer ku dhacay imtixaanka dugsiga hoose ee lagu gudbi lahaa dugsiga dhexe inta ku jiray safarkiisii dugsigii dhexe waxa uu tiro 3 jeer ku dhacay imtixaankii loogu gudbi lahaa dugsiga sare markii uu dhameeyay dugsiga sare waxa uu 2 jeer ku guuldareystay aqbalaadda jaamacadda mid ka mid ah kuwa ugu liito magaaladiisa intaas waxa uu dheer in uu 10 jeer codsi u dirsaday jaamacadda Harvard ee waddanka Mareykanka midna lagama aqbalin dhammaan didmooyinkan waa intuu ku guda jiray safarkiisii waxbarasho Jack intaas kadib waxa uu isku dayay in uu raadiyo shaqo waxa uu codsaday 30 shaqo balse midna looma soo jawaabin mar uu ka hadlayay xarunta cusub ee KFC ee ka furtay China waxa uu dhahay markii aan maqlay in KFC China imaatay waxa shaqo ku aanay 24 qofood dhammaan waa la aqbalay marka laga reebo ani oo 23 qofood oo kale shaqadii waa la siiyay mar kale ayaa 5 qofood ku codsanay shaqo booliis ah dhammaan waa la aqbalay anna waxaan ahaa qofka kaliya oo loo diiday markii aan weydiiyay ayaa la igu dhahay adi uma qalantid ee waxa ku fiicanta inaad noqoto macallin ee noqo macallin maxaa sameeynayd haddii guuldarooyin iyo diidmooyin saaxiibo kula noqdaan bilowga hore ee noloshaada nolowada qaybta commentiga Jack waxa uu isku dayay in uu barto luqadda Ingiriiska isaga oo mar walba aadi jiray goobaha ay isku yimaadaan dadka ajaanibta China dalxiis ahaan u imaada si uu ugu barto luqadda Ingiriiska waxa ayna ku qaadatay muddo 9 sano ah waa meesha uu ka helay magaca Jack oo ay bixisay gabar ka mid ah dadkii dalxiisaha u imaaday China waxa uu 3 sano kale ku bixiyay jaamacad si uu u qalin jabiyo heerka koowaad ee luqadda Ingiriiska Bachelor Degree in English waxa uu macallin ka noqday college oo uu dhigay luqadda Ingiriiska waxa uu mushaar ahaan u qaadan jiray $12 bishii adoo Bachelor Degree ah ma ku shaqayn lahayd shaqo $12 mushaar bishii jawaabta nolowada qaybta commentiga sanadii 1995 waxa uu aaday saaxiibkiisa oo ku noolaa dalka Mareykanka waxa uu arkay saaxiibkiisa oo internet isticmaalaya waxa uu raadiyay website ay Chinese leeyihiin wuuna waayay waxa ay u arkay in ay tahay fursad banaan oo la rabo in laga faa'iideysto markii uu dib ugu noqday China waxa uu isku day inuu sameeyo website balse Jack Ma ahayn qof yaqaan sida loo qoro koodka oo na ku guuldareystay 2 jeer oo isku dayay 4 sano kadib waxa uu gurigiisa ku casuumay 17 ka mid ah asxaabtiisii waxa uu ku qanciyay inay maalgashtaan aragtidiisa si uu u sameeyo suuq online oo uu bixiyo magaca Alibaba markii ay saaxiibadiis ku raaceen fikirkiisii 3 sano ee ugu horeysay wax dakhli ah soo ma saarin balse waxa ay ku guuleysteen inay soo jiitaan dad badan oo rabaan maalgashtaan fikirkooda waxayna shirkadu 5 milyan ku aruurisay Golden Side ee 20 milyan ee ka soo aruurisay SoftBank tan iyo markaas Alibaba waxa ay noqotay suuqa ugu weyn ee online-ka ee China laga leeyahay waxayna soo saartay faa'iido ka badan tan Amazon iyo eBay oo la isku daray waxuuna Jack Ma noqday
mid ka mid ah dadka ugu hodansan adduunka. Haddii aadan isdhiibin weli fursad ayaad haysataa. In la isdhiibo waa fashilka ugu weyn, maxaa yeelay haddii uu jiro qof garanaya micnaha guuldarrada waa Jack Ma. Ka hor intuusan gaarin da'da soddomeeyadii, waxa uu dareemay sidii qof guuldareystay mar walba. Waxa uu dareemay sidii qof khasaaray, laakiin taasi ma niyad jabinin. Weligaa ha isdhiibin. Maanta waa mid adag, berrina way ka sii darnaan doontaa, laakiin maalinta ka dambeysa waxay noqon doontaa maalin qurux badan oo ifaysa sidii qoraxdii oo kale. Mr. Jack Ma. Sheekadan dhiirigelinteeda ugu weyn iyo ahmiyaddeeda ayaa ah inaadan marnaba isdhiibin. Si kastoo ay caqabado ku soo wajahaan noloshaada, min bilow ilaa iyo dhammaadka, marnaba ha aaminin inaad tahay qof fashil ama qof khasaaray. Mar walba oo aamintay inaad tahay qof khasaaray, waa mar walba oo iska dhimisay fursadaadii aad ku guuleysan lahayd beri. Ogow, maanta si kasta ay u adag tahay, beri ma ka damaana qaadi doonto inay maanta waqti kale noqonayso. Balse wax walba waa adkeysigaaga iyo dulqaadka. Mar walba oo aad tahay qof sabar badan oo dulqaad badan, waa mar walba oo guusha agtaada taalo.